sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Dheer oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa khudbadii salaada Jimcaha waxa uu kaga hadlay dhacdo la yaab leh oo ka dhacday magaalada Hargeysa. ragle afar nin oo isqaba nin la afartan baa ana qaba sidinaagii afartan ba ana qaba xaasas qoomuluud ah. Sheekha hadalkiisa si wata waxa uu sheegay inay ka dhacday magaalada Hargeysa qiso aan hore looga arag oo ah qisadii lagu halaagay qoomkii Nabi Luud. ficilkii qoomuluud ayaa Hargeysa ka jira وينجي مقلني محكمة قاردين حكومين قاركود وطمنان صناعي كحكومين سيدا درادد ومعصية يحمان إنه عصب أمام عين الله يابي دونا وقتيا ظهره لكن وحي من دونتا هدان لقى هورتجين أو أن ليس جدجين أو أن ليس عضين أو أن تذكر اللوجو باقي وناجه شركنا اللوجو جدجين وحي من دونتا معنى الله قبصده oo aan wax weyn loo arag waxay nagu soo kordhaya dadka dibadaha ka imanaya faraha badan le qaar badan oo kamidii afkaar bay xambaarsan yihiin aan la mahadin doonin cidibteeda iyo caaqibadeeda aan la mahadin doonin ayay xambaarsan yihiin haddaan laga digin oo dadka aan dhawaaq dheer loogu sheegin oo dawlad iyo shicib aan laga kicin fadhigana guryaheena ayuu dadku inoogu soo geli doonaa guryaheena waxay sheegtay inan kamida shaqo qaranta qablii shaqo qaran waxa weeye ka soo baxay jaamacadaha oo maxkamadaha dadka ka shaqeeyahay waxay sheegtay inay markaa la keeno maxkamadaheena la keeno gaar ahaan Hargeysa ragle afar nin oo isqaba nin la afartan ba ana qaba sidinaagii afartan ba ana qaba xaasas qoomuluud ah wax ka hadlayay wax ka qeyliyay midna ma jiro waxa laga yaabaa garsooraha la hor keenaa inuu yiraahdo xukuna qodob aan ku xukumo ma hayo war qodobkiisu waa dil uqtul al-fa'il wal maf'ul kan lagu sameeyay ka sameeyay labadaba waa la dilaya culimada islaamku waxay dhahaan waliba dilka ugu fool xun dil ayaa la dilaya fuqahada qaar waxay fatwoodaan culimada qaar kood fuqahadu buurta buur ugu dheer inta la saaro in laga soo tuurayo sida tiyubka si ay hawada ugu soo qarxaan oo isagoo hatta hilibkiisa dhulka laga ururanayo hatta dil caadi oo raaxa leh aan la dilay qowm luut waxa lagu haligay sida loo halaagay cid loo halaagay ma jirto dhulka la jaray sida u dhamaayeen samaa dunyaha lagu dhaweeyay markaas la soo foorariyay faj'alna 'aliyaha safilaha ba ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaanu ka yeelay qaybteedii sare hoostaanu marinay xageedii hoosana hoos tushaayaan soo marinay malaku jibriil alayhi salaam ayaa garab garbihiisa kamida galiye dhulka dabadna intay ku fadhiyeen ba waa la fujiyay ilaa samaa dunyaha malaa'iktii joogtay dhawaaqa diiga ay iyo codka diiga ay maqlayeen waa la soo foorariyay dabadna dhulka ayaa ka daba yimid xabaal kale looma doonin waa qowm luut Hamse Maxamed Muuse Cawke Real TV Hargeysa.